dhegaystayaal waa sheekadii mataan ciideed qaybtii koowaad. dadka eebbe waa kala cayn oo dadka eebbe waa kala dabeecad qallafsan, dabeecad dabacsan, dabeecad macaan, dabeecad qaraar, dabeecad naxariisata, dabeecad aan jixin geyigii la joogaba ninbaa uunka bud ka soo yidhaahda. maalmaha iyo guyaashu kolkay dabin soo wareegaanba wiil baa la soo tufaayoo far dheeraatay intuu arlada ku noqdo ka soo shaac baxa lana istusa. ninbaa hanaanka nolosha ee dadka badani ku wada dhaqmaa isaga u cuntami waayaa, markaas buu dhinaca uga leexdaa. waxa ugu wacanba ninbaa fara laga cudubilaysta ku kaca oo waxa uu samaynayo uu duulba duul u tabiyaa. xigmad oo idil ayaa garaadkiisa laga mayraa, markaas bay samaanta iyo xumaantu ay sooran u noqdaan. isaga oo indhaleh ayuu aragga beelaa, kolkaas buu uunku ula ekaadaa yaryarood aan maamuuskiisa mudnayn oo ilmilicsi uu cagta ku marin karayo. isaga oo dhagale ayuu maqalku ka baalidaa, kolkaas bay waanida waxgaradka iyo tusaalaha waayeelkuba sidii hadaaq carruureed ku soo gaaraan. maroodi aan la hormari karin oo cadhoolo ah ayuu isu qaataa. rag intiisa kaleetana waxay ugu muuqdaan cayayaan marka uu jeeniga saarayo aanu dareemin, iyaguse dareema. hortiisa iyo ambada uu ku socdo tiigsa mooyaane wuxuu faray iyo abuurtii uu dandareeyey midna dib uma eego. lamaba noqoto inay yihiin wax mudan in daraaddood uu hashlihiisu la hakado. ayaase tolow sidaa u baneeyey. ma waaye aragnimo yariba ah, ma aqoon gaabniba ah, ma garaadara ah, ma kibirka iyo ka badbadinta ku adeegsiga awoodda aadkeedaba iska kooban ee aadanaha baladba. intaasi waa iga gogol dhigasho. waxay hordhac u tahay sheeko ku dhowaad 2 qarni ay soomaalidu isu warinaysay, ayna ila noqotay inaan mooggaan idinku jalbeebiyaa inay habboon tahay. waa sheeko soomaaliyeedoo dadkeedii iyo kuwii goobjoogga u ahaa toonihii aysan maanta adduunkana mooyee adduunkan idinkaga dhaqnayn. waa sheeko waa fog dhacday, asii hari weydayoo sidii la isugu soo gudbinayay uu nasiibkayaguna soo gaarsiiyey. qiyaasta waa bartamihii qarnigii 19aad. geyiga aynu joognaa waa dhulka ciid loo yaqaan oo carrada cas ee furfurka ah ku tilmaaman. ninkii aan aqoon baa loola dan leeyahay waa dhulka gar loo guba uu beri ugu magaca dheeraa ee haddaanan qaldanayn ay maanta qabri daharre magaalada u tahay. dalku waa nabadoo gaala weli cagta ma soo dhigin. saancadda iyo saanmadooba toonihii weli kuma dhex saqaafin. waa la barwaaqaysan yahayoo roobku xilliyada la sugo ma maqnaado. in dhaweyd abaara ma dhicin oo dareenka la qabaa wuxuu ku kooban yahay subagii oo qumbayaasha ka batay iyo xoolihii oo tiro dhaafay, wax celiyana la waayey. geela ayaa halkii loo dhaqaaqaba sariiran. lo-da ayaa balliyada agtooda ka banaaxii. wegana farda ah oo barbaar timaha deebeeye ku joogto ayaa la bedri. seenya dhuux iyo dhiinwaalna iyaga carruur iyo dumar mooyee nin raga iyo dheef kama jeeqaaqo oo waa ka garanuug. dhiig iyo dhaqan, xilo iyo xoolo wixii dadka kala gala guurti abwaana ah oo talayaqaan miiran ah ayaa loo geeyaa. ilaahow aqoonna ha nagu cadaabin, eexana ha nooga tegin intay ku ducaystaan ayay xeer la wada yaqaan oo aalaaba la okoban yahay garsoorkooda ku sareeyaan. shareecada islaamka iyo xeerku kolkii ay isdiidaanna shareecada ayay ula bayraan. guddoonka ugu dambeeya wadaadka tuxfaha iyo minhaajka xambaarsan ayaan laga daba hadlin. go'aanka geedka shir nin diidaa cambaarow, habaal iyo in la isugu tufaana u dheer, iyo weliba isaga oo gardiid magac ugu yeedho. habkaasi nololeed ee geyiga ciidada looga dhaqnaa waxaa calwinaya barbaar kol qura la soo tufay oo magaciisa lagu wada hadaaqay. barbaar in ay degmo wadaag ahaayeen iyo in ay kala fogaayeenba dadka eebbe hurdadii iyo harsigiiba u dacareeyey. nin kibray oo tadhahay oo wixii uu doonaba ku kacay ayuu ahaa. safarkii uu la kulmaba waa dhacay. 2 eray ninkii ay dhex martayba qaar buu saarsaaray. madax iyo manjo uunka wixii ka hor yimidna waxyeello ayuu u geystay. xumaan mooyee nin aan dubaaqiisa sama ku soo hoyan ayuu ku caanbaxay. waalid buusan maqlin, guurti baan wax u sheegi karin, waana culimuu dhagaha ka furaystay.
eed nin ay lahaayeen iyo nin aysan lahaynba waa dubaaqeeyey. shisheeye iyo sokeeye waxaa u dhexeeyana ma uu aqoon. raafley iyo qoobley wixii xoola badanka daaqaya inuu leeyahay ayuu isu qaatay. kolkaas buu sabanba qolo ka soo meersaday nool wixii ay dhaqeen. inta la isweydiiyeyba cid ka nabad gashay sina loo waayey. barbaar u babacdhiga ayaa intii muddo a soo muuqan waayey. markaas buu maskaxda gashaday ilaaha weyne inuu geyiga ciideed iyo dadka deganba isaga ku xudumay. inuu sidaas yeelo welibana uu muddo dheer ku badbaado wixii u suuro geliyey miyaad i weydiin? alla ilahe dow baad su-aasha u leedahay, anigana jawaab baa igu garowdaye intaan kuu soo koobo aan idhaahdo horta xoog iyo tiirinimo qabso. marka xiga geesinimo macangegnima weheliso ku labayso. marka saddexaadna waa qoyskii uu ka dhashayoo qaran ahaa. intii qoys itaaliya yeelan karana lahaaye iyadana ku darso. wuxuu isku halaynayay boqolaal gaashaanqaadoo ay awoowo wadaageen, gar iyo gardarrana ku garab taagnaa oo aan dhiiggiisa ciidda u oggolayn. gardarro garba og oo sidii ugu ba'nayd uu ugu adeegtay ayaa ku kaalmaysay inuu muddo madaxa taago oo qaydar qodaxdii uu dadkii agihiisa ku noolaa ku ahaado. tilmaamahaas aan cidina jeclayn talow ninkii lahaa kumuu ahaa. aan jawaabta kuu dedejiye waa xasan axmed xirsi oo mataan ciideed soomaalida sheekadiisa wax kala socotaay ay ku garan og tahay. ninku waa ninkaas magaca ciideedkiisii ku darsaday ee ku laray. ma moodaa isaga mooyee inaan labood kalaba ciid lagu dhalin. haddaba waa un la sheegaaye mataan ciideed ma doqon saleella ah ayuu ahaa, ma diric buu ahaa, ma geesi buu ahaa, ma macangag buu ahaa, ma waxgarad buu ahaa, ma liite aan wax aqoon buu ahaa. sheekadiisa ayuunbaa wax badan inooga sheegi doontee bal ila dhadhanso oo ila dhux. naxariistii janna allaha siiye abwaankii af soomaaliga sheekh maxamed xaaji xuseen oo sheeke xariir loo yiqiin ayaa beri mataan ciideed isaga oo nooga sheekaynaya wuxuu yidhi adeeradii dhowrka ahaa ee mataan waxaa ku jiray waxyaqaan xirri badnaa oo aragti dheeriya harsatay lana odhan jiray axmed maxamed xirsi. saadaal aan habaabin nin looga bartay ayuu ahaa. wuxuu ku jiray raggii guurtida ahaa ee mataan waanadiisa ku oomay. wuxuu ka mid ahaa raggii isku hawlay wiilka iyo uumiyaha inay u kala miciinaan oo kala maadiyaan. asii waxba ka gaari waayey. wuxuu ugu horreeyey garcadaayadii gadaalkii mataan ka quustay oo waana abuur baa ka horraysay inta ugu maahmaahay u saadaaliyey ha dhowaato hase dheeraatee goor ay noqotaba inuu gardarradiisa eedi doono. arrin foolxun kolkuu faraha la galo oo la isku ogaamo ayaa ilentifo ayuu u ahaaye axmed maxamed loo iman oo lagu odhan axmedow maantana mataan waxaa iyo waxa ah ayuu ku kacay. axmed maxamed isaga oo aan isluurin buu odhan xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin. weedhaas lama garan jirina waa la garan waaye jire. axmed maxamed baa dhalaal kale loo imanoo inta loo warramo lagu odhan ninbaa maanta geedkii shirka iska taagay. dabadeedna xasan mataan baa inta labadii waran isugu qabtay xudunta kaga dhuftayoo duuddheerta kala jebiyey. axmed maxamed wuxuu odhan xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin. dhalaal kale ayaa axmed maxamed loo iman. kolkaas baa lagu odhan shirkii buu maanta xasan mataan tegey. dabadeedna jadal buu inta qaatay ninkii ragga ugu mudnaa ama sheekha ahaa siduu ugu garaacayey dubkii kaga murxiyey oo ciidda jiifiyey. axmed maxamed wuxuu ku jawaabi xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin. maalin afraad ayaa haddana loo iman laguna odhan axmedow aqal buu xalay gubay. dabadeedna markii la maagay in loo soo gurmado oo dabkii la seexiyo ayuu gabooye fallaaro mariidaysane ka buuxaan dadkii meesha ku soo ururay ku bilaabay oo rag iyo dumar wixii goobta isa soo taagay midba fallaar baarimaha u joojiyey. axmed maxamed isaga oo qabow ayuu ku jawaabaa weedhii uu goor walbaba ku jawaabi jiray ee ahayd xasan mataan wixii eebba ku abuuray weli ma dhicin. dadka kale ayaaba yaabane isaga yaabba taaban maayo. ma garabdaar buu lahaayoo waxa loo sheegayo wax ka weyn oo dhici doona ayay duulashiisu waayo hore dubaaqiisa ku hubsadeen. hadda garan mayno, gadaal baynuse ka garan doona.